dowlad goboleedka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed ayaa maanta shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ku baaqay in la joojiyo colaad beeleedka ka socda degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan taa oo dhalisay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan. waxaan shirkeenan maanta ku saabsan jaraa'id baaq aan u dirayo beelaha walaalaha ah ee ay dirirtu ku dhaxmarayso Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan degmada Beledweyne walaalahaas waxaan leeyahay walaalayaal xabadda hala joojiyo baaqaasna waan dirayo anoo ku hadlayo magaca dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha inay joojiyaan dirirta halka ku dhaxmarayso maanta looma baahna dhowr iyo 20 sano kadib waxaan leeyahay dagaalkaas hal ugu bedelo wada hadal hal ugu bedelo muxuu ahaa nabadgelyo hal ugu bedelo islaax bayna naas mar labaad iyo mar saddex waxaan leeyahay shacabka dhibaataysan ee dhibaatada faraha badan leh ee abaarihii kasoo kabsanaya ee cudurrada kasoo kabsanaya colaadihii kasoo kabsanaya yaan la barakicin sabab la'aan yaan la barakicin waxaan rumaysanahay Hirshabelle in ay horumarayso oo ay hore u socotaan aanu rumaysanahay in dib loo celiyaa ma aha waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlayo afka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle in aad xabadaas joojisaan inaan dadka shacabka barakicin waad ku cadaamutaysanaysaa annaguna waxaan aaminsanahay dadkaasu inay xabadaas xaqdarata dowlad goboleedka Hirshabelle waxay u dirtay wafdi oo wasiir ah oo hogaaminayo wasiirka dib u heshiisiinta iyo wasiir kale arintaasu wixii karaankeenna waa qayb qaadan doonaa diallen waa kale anaga aan diri doonaa guddi baarlamaani oo diri doonaa insha Allah oo guddiga dib u heshiisiinta baarlamaanka u qaybsan waan u diri doonaa anagana colaadahaas waxaan leeyahay soo noqnood hala joojiya dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana safarka madaxweynaha bahda warfidiyeenka ugu warbixiyay soo dhaweyn kadib wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle Mahad Xasan Cismaan bismillahir waxaan maanta ku soo dhaweynay garoonka magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdulaahi Cosoble oo bariyahan safar shaqo wadanka dibadiisa uga maqnay wuxuu safar shaqo ku soo maray dalka Ingiriiska oo uga soo qayb galay shirkii kadib wuxuu safar ku soo maray dalka aan dariskanahay ee Kenya halkaas runtii muddo badan uu halkaas kula soo kulmay safaaradaha halkaas ku sugan iyo dawladda Kenya waxaan sidoo kale madaxweynuhu uu muddadan soo joogay oo safar shaqo u joogay magaalada Muqdisho oo maanta aan ku soo dhaweyn magaalada Jowhar waxaan runtii aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntii ay noo muujiyeen iyo taageeradii shacabka reer Jowhar Iqra Cabdulaahi Raagi iqradan tifiga caalamiga Soomaaliya